arrimaha gudaha ma Soomaaliland mudan buu yahay misreer buu yahay وطعنا لنا حسوا منا سومالي لا نهين waxaanu ka mudaharaadaynaa dadka yagii baa la xasuuqay dawladii ma jirto haday dawladdu reer ahayn ma dadka muslimiinta kala dhex galaan islaanaya dhiig islaamka maalin walba lagu qubayo laba qabiil ba islaanaysa dabeetana hadii ay islaanayso dawladna qaarna waa la hubeynaya qaarna waa la eeriyanaya ninkii isa soo taaga waa la eeriyanaya waa la xilxilaya maalin kasta ina kaahin ayaa waxa soo dhan ka dambeeya wax xukuumadda jaaga xisho baraynina waxa weeyaan waxaanu nahay ummad ballaaran oo meel walba taala oo Hargeysa taala oo Burco taala oo Berbera taala oo Ergaba taala aad dadka u saraabada baanu nahay waxa weeyaan 20 sanadood ayaa waxaan kugu yiri 20 sanadood ayaa nooranu dawladda wax laaliyo waxaanu ku lahayn jirin ragayaga waxba waa la laaya maalin walba dawladda laysa maalin walba dhibaato iyo hawl baanu ku qabnaa wakiil shaqeeyo waa laga eriyaa akis baanu ku jirnaa nolol xumaanu ku jirnaa dhibaato iyo urku taalaanu ku jirnaa maxamed cali baa naga dhintay oo lixda naga dhintay oo haragwaafi baa naga dhintay oo madaxdii baa naga dhintay oo ina macalin haaro baa naga dhintay oo arjantii baa naga dhintay oo waxaan kugu yiri ragayagi wuxuu ku dhintay dalka oo ku dhintay dalka oo ku baabay waxaanu ku haysanaana ma jirto waxaan ku cabanaynaa dabargoyntana la dabargoynayo dagaalka ceelafeen ka dhacaya ee Ergaba ka dhacaya ee Burco ka dhacaya ee Hargeysa ka dhacaya ee nala dabargoynayo ee reerka ay dawladdu nalaynayo ee sheer daladood noo xidhay maalin walba ragayga la laynayo Allahu akbar waxaanu diidadana ma ogolin Muuse bixiisa oo shabirood haysa Muhammad yari xasuuqay ma ogolin hadduu jooji waayo wallahi ma ku dhaartay waa la ku dhamaa dadweynaha ku nool gobolka Togdheer beesha habar yoonis baanuna hadii aanay beesha habar yoonis annagu dagaal dooni mayno mana jecilin laakiin waana lagu kalifayaa waxaan u sheegaynaa Muuse Bixi Cabdi Muusow kursiga annagaad nagu fadhidaa qasrigana annagaad nagu fadhidaa hadii sheekada 94kii haddaad maanta adoo intifaac laga doonayay dalka inaad wuxuu tarta la doonayay dadka iyo dhalinyarada inaad wuxuu tarta la doonayay haddaad sheekada 94kii aad bilowday beelaha walaalaha islaayay aad ka dhigtay beel gaar habar yoonis oo aad hub u qaaday hadii aad ka soo noqon weydo oo caare aad ka soo noqon weydo billaahi tallaahi rag iyo dumar waxaanu qaadanaynaa qoriyo saraawiil baanu gashanaynaa waanu dagaalamaynaa waxaanan ku dagaalamaynaa dagaal shahiida oo xaqa dalka hadii aad dhisaysid waan kula dhisi lahayn waanu dhisaynay عليكم ورحمة الله وبركاته وحوي halkan dhibaato xoog leh ka taagan waa dawlad iyo qabiil hadaanu anagu beesha habar yoonis waanu dagaalamaynaa wax noo leelaa ma jirto waxa weeye jeegaantu waxay socotay taliya taariikhdii asanam oo dul qaadanaynay Axmed Siilaayo taariikhda madow ka tagay dib ugu dul qaadan mayno taariikhda madow waanu ka dagaalamaynaa mugdiga waanu ka dagaalamaynaa inkastoo aanu islaahin Muuse degta qorigu hay jaro wuu ka soo noqonayaa oo wuu isdhaqdhaqayaa magaca ku baxay 1994 waxaan aragnay maanta inuu dib u bilaabay degta qorigu hay jaro miyaynu aqbalaa
شعبكن ضحتادو هشي معيشة لغو دلعي بلدياي بدك يوم قم بلدياي بدك يوم قم دكاني معروشة إيو ظروفك هبسدين شعبك ضحتادو هسي معيشة لغو دلعي بلدياي بدك يوم قم بوكا دولار لغو حريو